السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داوديال دمانتين با كسر دوادا برنامج كارا وأنو كو أجي دونو دق بيجلينا أو لوجو دق آدم بله دكسة سراء آدم بله أوبسية سكندري مجالات حريرة داوديال دقدن بيجلينتا أيا واحد دكسة أوجو دقي جالية دا قبل كسل ولا لها تلك سويدن كواسيو هرينا أوجليي qaybta korontada dabka laga dhaliyo oomiga cadceeda loo yaqaan solar system energy-ga waxaana jaaliyadu farsamahan u soo wakiilatay gudiga dugsiga sare ee aadan bile obsiye ee magaalada xariirad geesta kale waxa dugsiga sare ee aadan bile obsiye soo gaaray deeq qalab kombiyuutar ah oo ka kooban 2 kombiyuutar iyo aalada daabacada waraaqaha ee loo yaqaan printing-ka deeqdan kombiyuutarada ah ayaa waxa dugsiga sare ugu deeqay jaaliyada gobolka Salal ee dalka Canada gaar ahaan gudida maalgelisa dugsiga sare ee aadan bile obsiye waxaana ku suntanaa deeqdani kombiyuutarada ah marwo sahrad daahir ciisood iyo marwo dahabo muumin raage oo kamida deeq bixiyaasha dugsiga sare ee aadan bile secondary school ee magaalada xariirad daawadayaal qaar kamida bulshada degmada xariirad oo kulan saxaafadeed ku qabtay gudaha dugsiga sare ee aadan bile obsiye ayaa si weyn ugu mahad celiyay deeqdan soo gaadhay dugsiga sare iyo deeqo kale oo iyaguna ka soo gaaray dalka gudihiisa bismillaahir rahmaanir rahiim yaa ayyuhalladhiina aamanu taqullaha wal tanzur nafsun maa qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabiirun bimaa ta'maluun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم الكلمة أنت أنجونا وحريرة وإسكول كي سكندرية كما علىها آدم بلو أبستية degmadan xariirad waxaanan ka hadlaynaa maanta xafladeeda walaalaha Sweden halkaan ugu soo deeqay biyaha maanta aan ku isticmaalayno nijaas iyo wax bixin iyo wax ku beeridba noogu filan iyo acaba noo gartay noogu soo dadaalay baan mahad ilaahay baan iyagaasan mahad u celina waxaan joognaa oo haddaan ahay anigu gudoomiyaha maxkamadda degmada xariirad Sheekh Xuseen Barkad Aadan waxaan idinku soo ducaynayaa waxa aad bixiseen ilaahay aakhira waxa inaga siiyo waxaad haysatiin Allah inii barakeeyo annaguna walaalihiina inii jecel ku istareexay waxaad noo keenteen baan nahay waan inaga gudoonay sida awgeed dadka iyaga gebigiisa dibadda jooga anagoo u ducaynayna waxaan leenahay walaalaha iyaga waagi solarkan la gelinayo si yaroo kala u qaatay murihiisiina cunayna maanta oo fiican yihiin oo sidii hore ee layniigu sheegay ay wuxuu ahayn oo waxaan leenahay ilaahayna keenay ay tahay baan inaga dhaadhicinaynaa salaan iyo mahad iyo kalgacal baan soo dirnaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta waxaan isugu imanay halkan dugsiga sare ee secondary-ga degmada xariirad waxaanan isugu imanay inaan furno oo xaflad u sameeyno biyagelintii ay noo fuliyeen walaalaha Sweden biyahaas iyo korontadii ka horeysay oo solarka ahaydba waxa labada qaybood iskuulka ugu deeqay dabka iyo biyaha walaalihiina la yiraahdo walaalaha Sweden khayr Allah siiyo wax badan bay tareen wax tar weyn ma dugsiga la buleeyahay oo iftiimaya nabadgelyadiisa baa sugan maxaadani ardaydii koronta helaysa macallimiintii adeeg dab bay haystaan taa kadib haddana waxay noo fuliyeen biyahaas 650 mitir ayaan ka soo taglaalay waana aragteen masaafada biyahaas oo kaamirada lagu soo qaaday intay dhan tahay si fiican oo fashalayo socotaa dooxyaan ka soo tolownay buuraan ka soo tolownay biyi maanta alxamdulillah isticmaalkiisii oo dhameystiran bulshadu iyo dugsigan ardayda joogtaaba way haysataa sidaa daraadeed iyaga walaalaha Sweden biyaha iyo dabka iskuulka yaa ugu deeqay waana lama arrimood oo aad u culus oo aad u waaweyn oo aad u muhiim ah oo nolosha bilaadanka laanta daqiiqay way ku mahadsan yihiin dhaqaale badan bay galiyeen dadaal badan bay galiyeen intii baxda ahayd ee reer xariiradna qaybtooda ka qaateen oo hawl fulintii sidii iyagu qorsheeyeen
baahiduna ahayd bay u fuliyeen waana aragteen khayr Allah siiyo dadaalka ay noo fuliyeen waxaan ka rabnaa inay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad noo laabaan oo noo toban jibaaraan oo inaan naga fadhiisan sababtoo ah waxaan nahay alool qabya waana la dhamaystiraa waan wax badan baa dirba dugsigii u qabsoomay wax badan ay ka dhiman deerkii baa naga dhiman qalabaynta xafiiska macallimiinta naga dhiman library-goona noo ballaadhiyaa naga dhiman guryo macallimiintu ay jiifsadaan oo ay ku nastaan ayaan u baahannahay wax badan ayaa aad ugu nooga dhiman intaasna waxaan ka rabnaa kuwa intaaba noo fuliya walaalahayay qurba joogta ah gobolka Seyland u dhashay in dadaalkaasi laabaan wax baa uga mahadnaqayaa barasaabka gobolka xogeenka gobolka Awdal oo buugta arkaysan maanta library ahaan ardayda u haysatay oo u akhrisanayso isaga ayaa dadaal badan ku baxshay fikir badan ku baxshay wuxuuna ka soo qaaday hay'ad Mareykana oo Soomaaliland keentay oo dugsiyada qaarkood ugu deeqaysay ayaa iyo barasaabku gobolka Awdal ka soo qaaday Cabdi Nuur Sugaal isaga ayaana noo keenay wuxuuna nagu soo dhibay maayirka degmada Xariirad maayirka ayaana guddoonsiiyay khayr Allah siiyo maanta anagu haysana maayir cusub oo isaguna dadaal badan intii qaybtiisa inta magaalada jooga ka naga qayb galay maantana goob joog ah xafladan ayaa buugtaal keenay transportkii kharash ku baxayna walaalahay suulan baa baxshay oo dana mar saddexaad deeqda kalena ku daray intaasi waa wixii ay fuliyeen dugsiga walaalahay suulan guud ahaan iskuulku si fiican buu soodaa min qoritaanka ilaa imika mar walbana waxtar weyn baa ku soo biiraya alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad sheelay maada la soo koobi karin marka hore ilaahay baa sugnaatay ama baad halkan joognay waxa weeyaan waa dugsiga sare Aadan Bile Secondary School Xariirad waxaan ka mid ahay macallimiinta dugsigaas joogta isla markaana maamulka dugsigaas aan ka mid ahay haddaan wax yar ka taabto habsami u socodka dugsiga sare Aadan Bile Secondary School Xariirad waxbarashadii si toos ah ayuu bilaabantay wayna socotaa halkii loo baahnaa si wanaagsan bay u socotaa ardaydu way dadaalkeedina si fiican bay u fulisaa waxaa dhacda in ay mararka qaarkood iyagoo soo koftamayo sida Ingiriis ugu hadlaayeen la arkaba dhacda wayna dadaalayaan macallimiintana aad bay si fiican bay xirfadooda ay ugu gudunayaan haddii aan ka warramo waxqabadka ay walaalaha qurba joogta ay walaalaheena inoo qabteen ay dugsiga u qabteen habsami u socodka si ugu socdaan waxaa ugu horeeya dhowr arrimood baa laga qabtay sida kombiyuutaradii oo loo soo dhameystiray ardayda si ay waxbarashada kor loogu qaado baahiyihii dugsiga oo ka mid ahaayeen biyaha iyo electronic oo loo baahnaa oo iyagna la keenay iyo waliba boogtii library-ga ay ardaydu wax ka akhrisan lahaayeen waqtiyada ay u baahdaan si ay u daalacdaan iyo dhalinyar ayadna reexrada soo kale ayagna ku beeray dhir aad u fara badan oo isku soo wareega waa bilicdii dugsiga ay taasina ka mid tahay markaas waxaan u leenahay walaalaheena qurbaha ee ka soo qayb qaatay furista dugsiga iyo baahiyaha wax ka qabashadoodaba in ay sida ay ugu soo heel iyo hooba ugu soo jeedaan ay si laabaan siina wadaan annaguna haddaan nahay macallimiintii dugsiga sare ee Aadan Bile Secondary School waxaan diyaar u nahay in aan si wixii kartidayda aqoon ay aan hayno oo dhan aan kor ugu qaadno tayada waxbarashada si ay ubadku berri ay u anfacaan degmadan iyo gobolkaba